ورقة دمانتي ورقة داس فرماج صوصاري ورقة داس مجدة واحد كجرة مالي واحد كجرة ورقة داس مجدة واحد كجرة مالي نينكي كدليها كود دوغة ويه ورقة داس واحد كجرة مالي وبين ينعنع فرماج وحصو وحي مجدة واحد كجرة مالي مجدة واحد كجرة مالي وكاس wax ay tahay agteena wax ay ka tahay waa nin anaga noo eedaysan farmaajo dhiigeena ma leh ninka gabadheena afduub way waana ka warqabiyaa wax ka jira ma leh warqadaas bismillaahir rahmaanir rahiim kadib markii uu warqad soo saaray maxamed cabdullaahi farmaajo kadib markii aan akhriyay warqadaas oo ay ku qoraayeen guddi uu sheegay inuu xil saaray baaristii Ikraan Tahliil Faarax nolol iyo geeri xaalkeeda siduu yahay kadib markii aan arkay guddigaas inuu ka mid yahay Yaasiin Farey oo ahaa ninkii afduubtay Ikraan Tahliil warqad galdacwadeedka ku aadaysan kadib markii aan qiimeynay warqadaas waxa ku qoran kadib markii aan wada tashi la sameeyay guddiga xaquuq raadinta mataqaanaa Ikraan Tahliil kadib markii aan la hadlay hooyadeed iyo aabaheed iyo adeeradeed anigoo afayeenka guddiga xaquuq raadinta Ikraan Tahliil waxaan cadeynayaa inaan qaadacnay warqadaas waxaan cadeynayaa in ujeedada maxamed cabdullaahi farmaajo uu warqadaa u soo saaray ay tahay laba ujeedo kow inuu maadaama kiiskeeda maxkamad uu yaallo oo baaristeeda ay socoto inuu carqaladeeyo ma awoodo isaga inuu mataqaanaa galdacweedkaas inuu rabsho ayuu doonayaa oo baabi'iyo waxa uu kale doonayaa inuu mataqaanaa dadkii dembiga loo haysta ka dhiga dembiila sariyaasha ka dhigo dad aan dembi gelin marka waa nasiib darro iyo qayb kamida fowdada oo maxamed cabdullaahi farmaajo caan ku noqday warqadaa oo soo saaray waxay cadeynaysaa ama ay qofkii wax gartay ee xeel dheerahay tusinaysaa inuu farmaajo wax ka og yahay afduubka Ikraan Tahliil laakiin anoo ku hadlaya afayeenimada guddiga anoo ku hadlaya afka ehelka iyo qaraabada Ikraan anoo ku hadlaya afka hooyadeed iyo aabaheed oo iyaguna goor dhow hadli doona waa qaadacnay warqadaa uu soo saaray farmaajo waa waxba kama jiraan waxaan u aragnaa warqad la doonayo in xaqa iyo xaquuqda Ikraan Tahliil lagu baabi'iyo waxaan u aragnaa in farmaajo gabadhaasi afduubkeeda uu og yahay laakiin uu doonayo inuu burburiyo baaristeeda socota inuu guddoomiyaha maxkamadda iyo xeeraliyaha gacanta ku haya inuu afka qabto waxa weeye farmaajo waxaan leenahay Ikraan Tahliil waad og tahay waana ka warqabtaa hadday nooshahay noo keen hadday dhimatana meydkeeda noo keen aan inta janaas ku dukana aasano wixii labadaas ka soo hara haddaad diiddo waxaan kuu ballan qaadaynaa inaan galdacwadeed maxkamadda ka furanayno ku saabsan inaad doonaysid inaad xaqa iyo xaquuqdii Ikraan aad duusiiso inaad gabaad siinayso kubii annaga noo eedaysanaa ee aan ku tuhmayno gabadha sidaa darteed dacwaddu aday ku soo gaaraysaa haddana dad kale aan ku soo biirinay dacwaddii adiguna looyarada Ikraan loo qabtay kuba caalamiga kuba gudahaba kiiskaas dacwadeeda kugu furayaan warqadaa aad soo qortay lafteedan kugu dacweynaa annagu Yaasiin Farey waa ninka gabadha afduubay waa ninka inay gacansi ku maqan tahay aan aaminsannahay
waxna ku darsamayno waxna noo baari maayo dadka meesha a ku qortana ma rabno waxaan ku qanacsannahay baarista socota ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maxkamadda iyo xeeraaliyahaba amray in la baaro kiiska Ikraan wax kasta oo ka dambeeyo warkaasna waxaan u haysanaa wax la doonayo in baarista socota lagu baabi'iyo sidaas darteed ma aqbalayno waa qaadacnay shaqo kuma lihin waxa weeye hadalka farmaajo wuxuu ka dhigan yahay haddii waraabe uu magacaabo dimibaarayaal ama guddi oo uu yidhaahdo cidda ariga cunta habeen kasta ee laysaha la soo baaro natiijada soo bixi doonta waa la og yahay hadalka farmaajona wuxuu ka dhigan yahay arrintaas farmaajo Ikraan waa og yahay haddii la dilay farmaajo Ikraan waa og yahay hadday nooshahay farmaajo Ikraan waa og yahay xaalkeedu siduu yahay maanta siduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu og yahay waxna kama qarsoona wuxuu doonayaa in kiiska baarista la fur maxkamadda ka cararayaa inuu carqaladeeyana waa dabeecadihiisa dabcigiisa laakiin ma carqaladay karo ilka aad nagu qaniinto maanta oo intaad igu qabato aad igu xanuunjiso malid farmaajo waxaan ku leeyahay karaama seegin habaar leeyu kari waaye ha karaama seegin habaar leeyu kari waaye war ha karaama seeginoy war hooy maxkamadaad ku dambaynaysaa ogow war adiga caddaysanaya kiiskii Ikraan ogow war annagoo waalidkii iyo walaalkii ah annagoo ehelkii iyo qaraabadii ah annagoo guddigii arrintaas u doodaya ah war waa kaa dhegsanaa farmaajow hooyadeedna hadday soo hadlaysaa qaali maxamuud guhaad dictor tahliil faarax axmedna hadduu soo hadlayaa warkaaguna ceeb buu ku dhammaanayaa qolada meesha lagu qoro magacoodana waxaa lee dhiiqada farmaajo ka fogaada farmaajo Ikraan waa og yahay waana ka warqabaa hadday nooshahay hana siiyo hadday dhimatana meedkeeda hana siiyo midna waa u sheegayaa annaga nagolama dayi karo inay Ikraan nooshahan aaminsanaha aniga shakhsiyan lacagtaan halka milyan la wareegaysaan cid aasisaan raasada cidda aad siinaysaan aabbaheedna maaha adeerkeedna maaha abtiyaasheedna ma aha daahir calisuna maaha diyana ka qaada mayno ee gabadhaasu hadday la dilay runtahay cadaaladda kuwii dila la dhaminaya hadday nooshahana waa helaynaa hadduu ilaahay baa wax dila idaa jaa ajaluhum laa yasqiruna saacatu walaa yastaqdimuun nafta farmaajo ma qaadid malagi nafta qaadayana maahay intaa u tashanaysa Ikraan ee aad u fikirayso ee isleedahay Fiji oo dhibaatay meesha loogu tashanayo ilaahina waa jooga isagaana lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ah isaga waxba ka qarsoonayn isaga mulkiga leh isaga kan wax og ah isaga ku arkaya ya anta abdullah ka anaka tarahu fa in lam takum tarahu fa innahum yaraka ilaahay oo baqado arkay sidoo kale hadduu haddaad arkayna isaga ku arkay ilaahay wuu arkayaa say wax u socdaana waa ogya waxna kama qarsoona qoyskaas iyo cid kastoo arrinta ku taxalluqday ee guddigeena kamidana ilaahay baan tala saaranay ilaahay ka sukowna waxaan ku calolofiyownahay maxamed xuseen rooble kiiskaa inuu saa u daba joogo waxaan ku calolofiyownahay maxkamadda iyo xeelaalyaha uu amray ee baaraya hadday farmaajow aad gabadhi noo haysa noo keen meydkeedii ama iyadoo nool haddii farmaajow aad in yaroo xishooda leedahay ood xishoonayso qoyskaas Soomaaliyeed gabadha ka afduubatay faraha kala baxrimooda haddaad diidda ma tahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi aan ku dhaaranayaa magacaale waad ceeboobaysaa waxaana kaa raacaya ceeb iyo dacwad iyo maxkamad iyo dhiiqa aan lagu hadla gashay haddoo kula jirtaabe dhiiqa aasaa u dhex dabaalato shabababax ayaa kaa raacaysa dadka dabaalla ma ah ma anaa yaasiin faray ninkii aan dacweeye maxkamadda kiiskiisa ii yiilay ayaad ii soo qortood leedahay xubin mataqaana ah waxaa mataqaanaa taliyaha ciidanka xoogga taliyaha booliiska mana qorshaas ii degay
ورما أنا قف لقيامة مثل أنا قاعد لقيامي كرأه ما أنا قاعد ما نقابه ولا دمانتي ورقداس ولا دمانتي ورقداس فرماج صو صاري ورقداس مجدة wax ka jira male wax ka jira warqadaas mujada wax ka jira male waa ninkii ku dilay ha ku doodo weeye warqadaas wax ka jira male waa been iyo nacna farmaajo wuxuu soo wixiyay mujada wax ka jira male mujada wax ka jira male waa kaas wax ay tahay agteena wax ay ka tahay waa nin anaga noo eedaysan farmaajo dhiigeena male ninki gabadheena afduub way waana ka warqabiyaa wax ka jira male warqadaas Soomaaliya saa ogaada hooyad baa hadlaysa aabaheed baa hadlaaya adeerada hadlaaya aniga afayeenka guud ee gudiga aha hadlaaya wax ka jira male waxaan ku kalsoonahay maxkamadaasi xilaliyaasi amarka ra'iisul wasaaraha bixiyay ninka hooyada u quri waayay inuu hal mar kelmad ku yiraahdo wuxuu sheegay waxba kama jiraan ninka yaasiin faray maanta wada wuxuu sheegay waxba kama jiraan maxamed cabdullaahi farmaajo naclatullaahi calayk محمد عبد الله فرماج نعلة الله عليه وبالله التوفيق